maanta hadiyad baan wadaa. hadiyadeyda waxay ku socotaa kuwa sheegtay inay yihiin laandheero. hadiyadda waxay ka imaan doontaa kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala fi suurati alqasas suuradda 28 aayadda 83. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay jannadiisa barwaaqada bashbashta iyo baraaraheeda inay helayaan dad laba tilmaam leh. Allah wuxuu leeyahay tilka daaru laakhiratu, daartaas dambaysa, jannadaas dambaysa, wanaagii iyo khayrka lagu tilmaamay, najcaluhaa waxaan u yeelaynaa buu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala liladiina laa yuriiduuna, duulka aan doonaynin culuwan sarrayn, laandheeranima ma rabaan, annagaa jirna iyo waxna soo gaaray iyo malahan iyo Soomaali baan haysan ku neeflaha annaga ugu sarrayna, waxyaabahaas kuma mashquulaan. walaa fasaada, dhulkana ma qarbudaan oo waxyaaba maaragtu Allah ka raali ahayn kuma dul sameeyaan. sababtoo ah waxay og yihiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin, ciribta dambo iyo wanaagga inay u sugan tahay ay leeyihiin kuwa rabbi ka dhowrsaday way og yihiin. marka intay dunidan ku nool yihiin kuma mashquulaan laandheeranimo iyo annagaa sarrayna iyo kuma mashquulaan. sababtoo ah Allah subxaanahu wa tacaala jannadiisa waxaa leh liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard, kuwa aan dunida markay joogaan sarraynta aan raadinin. sababtoo ah laandheeranimada waa shuqul shaytaan. aadam anigaa ka fiican, asaga waxaad ka abuurta dhoobo, anigana waxaad iga abuurta dab. marka waa shaqo shaytaan waaye. qofka muslimkana shaqo shaydaan ma qabto. marka hadiyaddan waxay ku socotay kuwa sheegtay inay yihiin laandheero. waxayna hadiyadda ka timid suuratu lqasas aayadda 83. marka ha nagu filnaato oo hana deeqdo. wa ana min almuslimiin, aniga muslimiintan ka mid ahay.